ugu horeyn isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee gobolka Awdal mudane Cabdi Ibraahim Digaale agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda mudane Jaamac Maxamed Maxamed Dr. Maxamed Jaamac Madar oo ka mid ah mas'uuliyiinta Xigma Foundation panelistiga caawa inoo falanqayn doona dood cilmiyeedkeenan la xidhiidha social mediaha dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijka ka soo qaybgalay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib haddii aan kelmado yaroo kooban idin idhaahdo waqtigoo cidhiidhiya waa maxay ujeeddada barnaamijkan aynu ka leenahay ay wasaaraddu waddo ee la xidhiidha dood cilmiyeedyada si kooban wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo oo ay ka mid tahay inay bulshadeenna u tilmaanto u jahayso qaabka ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo tiknoolajiyadda sidoo kalena ay bulshadeenna u tilmaanto amba uga digto khataraha ku gadaaman tiknoolajigaba si guud gaar ahaan kaynu caawa u fadhino ah baraha bulshada iyo wixii la midka barnaamijkan waxaanu ugu talagalnay in laga qabto amba laga fuliyo maadaamuu yahay barnaamij wacyigelina saddex eeriya amba saddex qaybood oo kala duwan qaybta ugu horeysa waxaynu ugu talagalnay in jaamacadaha dalkeenna si guudba haddii ay yihiin jaamacadaha caasimadda ku yaal iyo kuwa gobolladaba lagu qabto public lectures kaasoo la xidhiidha qaabka ugu fiican ee ay bulshadeenna amba ardaydeennu uga faa'iidaysan lahaayeen tiknoolajiga ugana midho dhalin lahaayeen hayaankeenna qaranka oo ah inaynu noqonno waddan tiknoolajiyadda ku tiirsan sidoo kalena dhaqaalihiisa ay hogaaminayso tiknoolajiyaddu meelaha kale amba eriyooyinka kale in ugu talagalnay in wacyigelinta laga sameeya waxaa ka mid ah dugsiyada sare oo ay joogaan daayarteennii jaamacadaha imanayay maadaama ay aqoon iyo hayaan waxbarasho ku jiraanna laga yaabo inay tiknoolajiyaddu qaado dhankeeda xun si aanay waxbarashadooda uga saamayn iyagana inaynu barnaamijyo wacyigelina wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ayay la wadaagtay iskuulladeenna babliga ee dawliga iyo kuwa bareefadkaba sidoo kale qaybta saddexaad ee barnaamijkan wacyigelinta loogu talagalay waxa weeyaan bulshada rayidka ah kaasi oo ka kooban ururada bulshada ee haweenka aqoon-yahanka ururada saxaafadda iyo sidoo kaleba bahda waa maxay dhaqanka haddaynu si kale u dhignaba dhammaantood waxaynu ugu talagalnay uun inay wacyi fiican qaataan saan horeba u sheegay oo ah inay tiknoolajiyadda dhinaceeda wanaagsan ka faa'iidaystaan sidoo kalena ay ka digtoonaadaan dhinaceeda khatarta leh amba aan fiicnayn ujeeddooyinka haddii aan soo ururiyo 4 qodobba ugu muhiimsan oo barnaamijkan aanu ka rabnay in la gaadho ujeeddada ugu horeysa waa saan horeba u sheegay waxa weeyaan inay wasaaraddu bulshada u soo bandhigto qaabka ugu wanaagsan ee tiknoolajiga looga faa'iidaysanayo waa qodobka ugu horeeya number 2 sidoo kale wasaaraddu waa inay bulshada uga digto amba u tilmaanto khataraha ku gadaaman amba ka iman kara adeegsiga xun amba adeegsigoo si xun loo sameeyo tiknoolajiyadda number 3 inay wasaaraddu bulshada la wadaagto khataraha iyo dhibaatooyinka ay keensan karaan baraha bulshadu oo ah meesha ugu badan ee ay daayarteennu amba waxaan loo yaqaano digital age-ku ay ku xidhan yihiin gebagabadii qodobka u dambeeya amba ujeeddada u dambeysay wasaaraddu ka leedahay waxa weeye inay wasaaraddu iyo bulshadu isku xidhmaan si ay wixii wasaaraddu aysa u soo gaadho bulshada maadaama wasaaraddu waxay u adeegaysaa ay tahay bulshada qaybaheeda kala duwan inahaasi waa ujeeddooyinka aan ka leenahay insha allah mawduuca aynu caawa halkan u fadhinno oo ah sida halkan idinku qoran today social media campaign ama maanta social media halka uu joogay iyo waxaanu rabnay inuu ka qaadanayno waxa ay noo falanqayn doona si faahfaahsanna inoogu soo bandhigi doona
aqoonyahanka hortiina fadhiya oo laydinba iskiin bari doona marka ugu horeysa marka dambana mawduuca dhinacyo badan inagala wadaagi doona si aynu aqoon iyo cilmi wixii ay hayaan inoola sheergarayaan amba inoola wadaagaan gabagabadii bulshada hoolkan iskugu timidna waxay awood u yeelan doonaan inay su'aalo wixii ay qabaan ay weydiin karaan aqoonyahanka intii karaankoodaana ay uga jawaabaan haddii su'aalo wasaaradda la xidhiidha tahay iyo haddii su'aalo la xidhiidha tahayba mawduucan aynu caawa ka hadlayno aad iyo aad u salaamaya oon u mahadnaqayaa wasaaradda ICT-ga oo inta badan inoo qaabilsan waddanka u qaabilsan arrimaha khuseeya technology-ga iyo communication-ka dabcan saxadiid oo ah departmentka ICT-ga iyo magaranaysa agaasimaha human resource-ka iyo dagaale oo regional coordinator-kiina aad iyo aad baan u salaamayaa wayna mahadsan yihiin ka soo qaybgalayaasha iyo paneliskana si gaar ayaan u salaamayaa kulliyan marka laga hadlayo de social media-ha de u fara badan yahay oo waad garanaysaan ma garanaysaa noocyada uu leeyahay inta badanna waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay double-edged sword micnaha midi laba af leh oo dhinac wanaagsan iyo dhinac xun labadaba ma garanaysaa social media uu leeyahay in layska wacyigeliyo oo ma garanaysaa wax layska yidhaahdo wax layskaga tilmaanaa aad iyo aad bay u fiicanta social media horta marka ugu horeysa de waxa weeyaan waa mareegaha ama waa collection of websites oo fara badan inta badanna waxaa loo isticmaalaa inay dadku ku wada xidhiidhaan communication waxaa loo isticmaalaa collaborations inay dadku dee wixii ka dhexeeya ma garanaysaa kaga wada shaqayn karaan content sharing iyo content creation waxaasoo dhan baa loo isticmaalaa waxaan ku horeyn lahaa markaa bal xagga wanaagsan ee badan social media iyadoo ay badan tahay laakiinse waxaan isku dayay bal inaan soo koobo oo xagga wanaagsan ma garanaysaa aan waxoogaa ka idhaahdo social media horta saasaa loogu talagalay halkaani waa social iyo media oo wixii fariinta la isku marinaya de platforms fara badan baa jira oo adduunyada sanad kastaba iyo bil kastaba waxbaa soo baxa oo ma garanaysaa aad loo isticmaalaa kuwa ugu caansan ee inta badan la isticmaalo de waa kan ma garanaysaa aan ku ababnaya inta badan qof kastaaba uu ku jiro waa facebookii youtube-kii baa kamid ah twitterkii maxaa la dhahaa just your listing yeah snapchat-kii baa kamid ah myspace baa kamid ah there are many aad bay u badan yihiin okay laakiin sidii siyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa waxaa jira linkedin baa jira oo isna si gaar loo isticmaalo oo de professional network iyo career development iyo waxyaabo saas oo kala ah marka social media de noocyadaas uu leeyahay haddaba adeegsigiisa iyo sida loo adeegsanayaa waa muhiim inuu qofku de ujeedo ka yeesho sababtoo ah waxa loo sameeyay waa ujeedo laakiin se inaguna waxa weeye in faano ujeedada aynu ka leenahay ma garanaysaa platformkan ma garanaysaa badan inay siisabeen u isticmaalna inaad adigu ujeedada adoo isticmaalayso aad fahanto ayaa ka horeysa marka ugu horeysa inta badan de waad ogtihiinoo imika adduunkii technology buu iskugu biyo shubtay hadday noqoto ganacsi de waxaa jira e-commerce baa jira dabcan waxaa lagu xidhaa social media twitterka lagu xidhayaa instagramka lagu xidhayaa snapchatka lagu xidhi facebooka lagu xidhi taasi maxay kordhinaysaa markaa inuu businesskaasi uu gaari karo dad fara badan oo waxaa la yidhaahdaa waa audience engagement in audience fara badan oo qofku dee engage garayo de marketingkii baa loo isticmaalaya imika waad aragteen de social media baa laga kala iibsadaa oo de ganacsiya yar baa iska jira oo facebooka ka jira instagramta ka jira meelo badan ka jira deetana waa faa'iido weyn ardaydu iyo da-yartuna de way isticmaalaanoo waxaa jira si gaara oo isticmaalaan oo ah for example facebooka marka la hadlayo de groupkii arday isku mid waxa laga yaabaa inay samaystaan facebook group deetana assignmentadooda iyo discussionskooda iyo de waxa ay ma garanaysaa kaga qayb qaadan karaan xaggaas waa xagga wanaagsan laakiinse marka contextkana aadna waxaa laga yaabaa inay de taa ka duwan tahayo marka inta badan aada akhrido researchada lagu sameeyey social media iyo shaqaalaha performancekooda iyo ardayda performancekooda de wax fiican maaha there is a lot of scandals there oo waxaa laga yaabaa ardayga intuu isticmaalo social media wuxuu saameyn ku leeyahay imiga
ardayga waxbarashadiisa. And the smartphones waxay leeyihiin screen time, something like that. So somehow screen time. Okay, screen time wuxuu ku qiyaasayaa haddaad doonayso inaad iscontrolsho. Screen time kan ayaad sadgaraysanaysaa mobile kastaba uu leeyahay. So then you see, you know, waqti intee leeg ayaad weygii social media had isticmaalaysay soo ma? And then you calculate, okay, and then waxaad ogaan kartaa your productivity. Inta sida fiican aad u isticmaashay, that's the productivity. Yeah? waxaasoo dhan wuxuu ku siinaya inaad iska controlsho. deetana weekly report baad heli. weekly reportkaas muxuu kaa caawinaya oo maanta 7 maalmood social media waxaan isticmaalayay de intii ugu badan hadday noqoto ilaa qof bilaadan tahay de waxaad arkaysaa in social media oo weliba de wax faa'iido badan laakiin hadda social media and productivity fiican aad ka keento ama paper aad la soo degto waxaad ku akhrisato waxaad ku design garayso waxaasoo kale for example that goes to your productivity side and then productivity ka dabka wada farxaysaa markaad aragto ma garanaysaa reportkii haddana wuxuu leeyahay tajaarad qaado waxa laga yaabaa mobilku markuu saa ku hor yaalo miiska adoo aan qofna ku soo qaraacin oo cidna ma garanaysaa aan la hadda ya 20 jeer qaadaysaa soo ma deetana mobilka maxaad u qaadaa waxa laga yaabaa halkii daqiiqo waxa la qiyaasay waqti badan in halkii minute oo qofku uu qaadayo mobilkii dhowr jeer okay deetana taasoo kale screen time ku sheegaya how many picks up ayad imsa jeer baad qaaday mobilkaad deetana waxaasoo dhan wuxuu ku horudaya inaad de qof nool noqoto oo xisaabiso oo deegto this is your productivity and this is your maxaa la yiraahdaa social media network and whatever and this is the big apps inta jeer aad qaad taana ma garanaysaa waa dhinac kale oo de social media ayay mobiladana aan ku control karno imka adduunka researchada la sameeyay markaad ka hadlayso ardayda iyo business performance ka saameyn ku leeyahay waxaad arkaysaa company waaweyn khaatiyan bay ka taagan yihiin shalay maraan akhriyay article waxay soo saareen company-du social media guidelines waxay soo saarayaan for example haddaad shirkad ka shaqayso aad isticmaalayso social media then you are waxaad isticmaalaysaa resource-ka shirkadda soo ma and then for example instead of entertaining the customers in a good manner waxa laga yaabaa yar loo jiidanayo si yar leh inay qofkii ma ogtahay serve karayso tan akhlaaqad ma aha markay muddo si caadi u fikirayno oo wad aragteenba de tukaanaynu wax ka iibsanaa oo meheradayn wax ka iibsanaa soo ma wad arkay qof aad wax weydiinayso oo iska yar loo jiidanayo ma ogtahay oo sabab yar yaabisa inta qofku waxa ka iibsanayay isna he or she is focused on the Facebook maxaa la yiraahdaa Facebook sayir buu eegayaa inta ma ogtahay oo way ku dhacday wad arkaysaa mar walba taas waxay saameyn ku leedahay business-kii customer engagement-kii customer service-kii waxa soo dhamay ku leedahay deetan waxa laga yaabaa in de sales-kii shirkadda ay compromise gareysay de saameyn ku yeelato waxbarashadiina waa la mid imisa jeer buu ardaygu uu buuga soo qaadaa imisa jeer buu mobilka soo qaadaa imisa jeer buu ma garanaysaa buug u akhristaa imisa jeer buu social media scroll down gareynaya imisa jeer buu wax wanaagsan qoraa imisa jeer buu wax wanaagsan u noqon waxaasoo dhan waxa u baahan yihiin in la iska xisaabiyo imiga de wadamada qaarkood inaga wax kasta waa free wasaaraduna way soo socotaa way dadaalaysaa oo qorshayaal bay ka leedahay dabcan ma garanaysaa jira meelaha qaarkood waa laga xidhaa jaamacadaha qaarkood waxaa laga xidhay intaad dhex joogto ardaygu sababtoo galaaskii buu daw u qaadanaya marka jaamacadaha qaarkood waxaa laga xidhaa in social media and then they can access other resource for the good purpose laakiinse waxaa laga xidhayaa social media kale oo Facebook jaamacadaha qaarkood markaad joogto maystaan waa inta khatiima laga taagayo oo waxaad arkaysaa ardayga iyo ama wax loo dhigayo ama macalinka iyo galaas ku jira someone is enjoying yeah so way dhacdaa deetana no dabcan macallin maana wax baan dhigaa deetana you see dad waaweyn wax u dhigayso oo ma garanaysaa Facebook ku jira iyadoo galaas ku jiro deetana hadii laga xidho portals-ka social media waana la sameyn karaa maxaa la dhahaa de waxay noqonaysaa ardayda iyo macallimiinta inay focus gareeyaan xagga family-ga no wax baan ka oran kulay iyadna waa muhiim waxaa laga yaabaa dad wada fadhiyo haddana kala fadhiya it's too many
ya marka qaarkood waan sawiraa and this is privacy maraba in la share garay laakiin soo sawiraa dad badan oo asxaabnay marka qaarkood mis waxaad arkaysaa annagoo wada fadhina qof kastaaba uu mobilkiisa una haysto wal meeshan ma waxa isku nimidna inaynu dee discuss garayno wax aynu dayri kala faa'iideysano waxyaabaha qaarkood dee qof kastaaba social media buu marka ugu fiican tahay waxay sameeyaan marta mobilada halka inaga dhiga reer qaarkoodna waxaa la sheegayay macnaha circle-iska caadiga ee social circle-iska caadiga dadku u yimaadaan in mobilada ay miis u sameeyaan oo iska dhigaan waxa akhlaaqa inaad qofka aad si fiican u la wada joogto dee adoon dhamaystiran soo ma ya ama dee inaad ma garanaysaa si uun aad isku maamusho deetan waxaad arkay dad wada fadhiya social media inta badan xitaa waxaan arkayay iyadoo dadka qaarkood ay ka sheekeynayaan qofkii dee masaajidkaba ku jira masaajidkii dee ma garanaysa waxaa laga yaabaa qof inuu qur-aan ka akhrisanayo sumad garan laakiinse waxaa laga yaabaa dad kalena inay dee Facebook iyo dee social media ay ku mashquulsan yihiin xagga family-giina dee problem buu ku hayaayo marka ma garanaysaa inan iyo aabihii iyo hooyadii ay mobile wada haystaan internet-kiina available u yahay way wada nool yihiin haddana ma wada noola soma waxaa laga yaabaa inuu aabihii iska loox jeedana sariirta dusheeda and that causes a lot of scandals by the way oo dee waxyaabo badan baa laga yaabaaba inay family problems fara badan ay dhaliso dee waad fahmaysaan mogtahay social media dee cid kastaa ku jirta oo qaar reer aakhirada ku jira oo qaar ma garanaysaa dee waxay doonaan ku hadlaya baa ku jira deetana the more you enjoy into the social media the more harassment aad la kulmayso qofka kala sheegayaan waxa weeye social media-ha waxaa ka dhaca harassment harassment waxaan u jeedaa haba imaado disadvantage-ka intaa waxa weeyaan waxyaabaha wanaagsan loo isticmaali karana de waynu garanaynaa oo laakiinse markaynu arday iyo macalimiin nahay waxaa jira social media haddana academiga loo isticmaalo soo ma ya okay anu waxaan kula talayaa da-yarta sidinoo kale jaamacada wax saas oo kala dhigta inay isticmaalaan more instead Facebooka inay LinkedIn ka isticmaalaan so that's professionalism waxaad Facebooka dee akhriyad badan baa ku jira moogtay xagga professionals baa ku jira LinkedIn-ka and then you enjoy your network shirar caalamiya ku jira isna waa social media shirar caalamiyaad ka qayb geli kartaa saaxiibo fiican baad yeelan kartaa that is for your career advancement marka kaa waxaan nagula talinayaa maadaama ma garanaysaa dhalinyartihiin aad wax barataan iskuuliyo jaamacadaad ku jirtaan LinkedIn-ka isticmaala haddii la yidhaahdo waxaa jira dee kuwo kale ood wax ka kororsan karto academia baa jira researchgate baa jira Google Scholar baa jira wax kale oo wanaagsan baa jira oo loogu talagalay in dee wax la isku wadaarsado balhan laba iyo wax ka sheego disadvantage-giisa inta iyadoo laga dambeeyo panelka marka laga hadlayo social media waxa ku jira risk badan oo security-ga la xiriira ya waxyaabaha qaar waxaad arkaysaa waxaa jira wax la yidhaahdo impersonification okay someone pretends to be your friend or someone you know deetana ama dee qof buu iska dhigaya qof baa iska dhigi kara engineer saxadiid ya qof baa digaale iska dhigi kara oo odhan kara garanaysaa regional coordinator ku inuu marti qaadaya things like that moogtahay oo fake wala samayn kara soo ma taasoo kale dhibaatooyinkaas u leeyahay harassment in ma garanaysaa social media dabcan u ka dhaca waxa kale oo jira caafimaadkana dee uma wanaagsano oo dee hurdadu waxaa u baahan tahay in dee adoo habaysanad seexato soo maha adoo Facebook iyo wax la dad seexato sleeping problems fara badan buu leeyahay deetana imika dadka qaarkood ma maqalnay waxyaabaha inagu cusubay waxa weeye sleeping hygiene dee marka lagu yidhahdo waxaad moodaysaa intaad maydhato iyo wax garanaysa saas maaha sleeping hygiene waxa weeye way do away all distractions ugu horeeya mobilkaaga waad meel iska dhigtaa ya deetana waad seexani laakiinse adigoo social media iyo loo jiidanaya ma garanaysa mararka qaarkood wax kaa cadhaysiyaad arkay mararka qaarkood wax saas oo kale deetana waxaad hurdadii ma fiicnaanayso deetana kaasoo kalena waa loo qoraa waxaa inta badan jira markaad aragto inkastoo aanu doctor caafimaad ahayn madax xanuuno badan baa laga qaadaa waxaa laga qaadaa xitaa qoortana dadka xamta nerfiska imika xitaa waxaa laga fikirayay magac bay leedahay la sameeyo qoorta la sudho oo qofku markuu saa yidhaahdo electrical impulse bixisa si qofku soo sababtaa waxaa bartay qoor xanuunkii iyo madax xanuunkii
waxaana koosgaraynaya dee waxaan san loogu had iyo jeer marka waxaasoo dhan baa jira waan idinku dheereeyey marka waxaan rajaynayaa haddii la yidhaahdo inaynu inaguna bal aan ka fikirno social media ujeedada ugu wanaagsan loo isticmaali karo okay dad waxaa jira successful oo magaranaysa connection kuwa ka faa'iidaystay dadka qaarkood waxaa ku xidhan 1 milyan dadka qaarkood waxaa ku xidhan 900 magaranaysaa qof dadka qaarkood dee kumayaal baa ku xidhan deetana haddii aad doonayso inaad dadka fariin fiican gaarsiiso dee wixii wanaagsanaa kaasuu gaari laakiinse haddaad waxa wanaagsaneed aad sheegayso dee dembigeygii baad leedahay oo dee social media dadku waxaa haystaan dee wax yaroo magaranaysa hadalkaa tidhahdaa dee meel fog buu gaarayaa inaguna dee dad muslimiin inaan nahoyo akhlaaqadu waa muhiim khuluqul xasan inaad meel walbo joogto oo dee akhlaaqad fiican ad yeelato waxaad qorayso iyo waxaad ku hadlaysana dee waa inay wanaagsan yihiin oo dee magaranaysaa waxa waajib unaga ah kalimatu dayibatu sadaqa ya laakiin social media qof waxa isaga soo qoriyo dadana waxaasoo dhan inagu dad muslimiin nahay Soomaaliya baynu nahay waxaasoo dhan inaynu iska ilaalino way hadii la yiraahdo social media waa muhiim sida wanaagsan haddii loo isticmaalo anigu waxaa qabaa faa'iidooyinkiisa ayaa aad iyo aad u badan maanta haddaan inaba faa'iidooyinkiisa ka sheekeeyo aad bay u badan yihiin haddaan idhaahdo u isticmaalo wax yar baynu heli okay haddaan inaba faa'iido darradiisa way badan yihiin sida loo isticmaalana dee way badan tahay marka waxaan kusoo koobayaa barnaamijkan wasaaradda waan ku ammaanayaa haddii la yidhaahdo in la joogteeyo laakiinse marka dambena wax lasoo bandhigo haddii la yidhaahdo waqtiyada dambe كل جامعاتي وين لا جوجان ومصطفى أو مقارنة دينك أي سي تي ده يجوجا وقتها دبوا وحن صوت جديد لها إن جامعات ودينك وهرمود كي أي سي تي ده وكله رسالة الله سمايا الله صابر ديكو ورناكو سنو السنة على السوشيال ميديا قولوا قالوا لا ترى صابر ديكو ده ترى لا يسكن عيا مركا إلا إذا قالوا أنت صو مقارنة سكون أما الله بكون قفان ولا يسنك بقول كيف حاول على سديد وحلو استعمالي بلي قيب دن أو أد ku iibin kartid adiga laftarkaagi oo wax ka sameyn kartid ba store baad ka samaysan kartaa aad markaa productgaagi informationkaagi xataa wuxuu qiimeeyaashii free delivery dadkii aad ugu geynaysid xataa business baad ka samaysan kartaa facebookii dadkiina waxay noqdeen inayba page-koogii promotion intuu ku sameeyo advertisement oo businesskiisa advertise gareeyo all over the world qof isagoo jooga waliba loo kali dee qof isagoo meel kasta jooga si yaroo fudud marka uu ku ogaan karo ama uu ku heli karo page-kaas iyo waxa uu qabanayo waxa kaloo markaa social media uu ka caawiyey dowladoo kale iyo governmentska inay si fudud xogtoodii ay u gelin karaan waxaan aragnaa iminka in wasaarad walba ay leedahay ama institution kastaba uu leeyahay page u gaara oo macluumaadka xagga uu gelinayo sababtoo ah every person ma hor istaagi karo mana waxna uma sheegi karo laakiin social media wuxuu u fududeeyey in ay dowladdu pageskan kala duwan ay leedahay ay xogtoodii ay ku baahiso ayna ka caawiso sometimes waxaan aragnaa xataa xagga dembiyada haddaan nimaadno inay criminalist oo kale ay ka caawin karto for example qof la raadinayo kale haddii si simple loo soo basgareeyo laga yaabaa in si fudud loo heli karo iyo wixii shuruuca ay markaa ay dowladdu ay soo rogayso inay markaa bulshada ay u soo mariso social media teamkayga kale ayaan uga bixi wixii kale faa'iida ay ku darayaan waayo qofka uu isticmaali karaa social mediaha waxay ku darayaan فاضما يدنا إن قدر دونتا فكر كي كقبته أما سؤاشن horta waxaa jira faa'iidooyin badan oo loo isticmaalo social media-ha waxyaabaha ugu badan amba faa'iidooyinka badan ee loo isticmaali karo social media-ha waxaa kamid ah ay dadkeenu badanka isticmaalaan waxa waa for building relationship inaad maxaa la dhahdaa aad xiriiro cusub xiriirku not midka ay dadku marka xiriir la yiraahdo ay u qaataan waa inaad xiriiro cusub aad ku samaysaa waxaa dhici karta markaad facebookkaaga isticmaalaysid maalintii inaad kumanaan qof ay kugu soo darsadaan ay kaa soo codsadaan oonad garanayn oo wax kasta iskugu jira waxyaabaha kale loo isticmaalo faa'iidaha waxa weeyaan for your
waa inaad maxaa la dhahdaa aada xog ku sheer garaysid waxaad garanaysid waxaad og tahay iyo waxyaabaha aad dareemaysid if you are feeling happy amba maxaa la dhahdaa cadho oo kale haddaad dareemaysid ay dadku badanka ku isticmaalaan waxyaabaha kale social media loo isticmaalay faa'iidooyinka waxa weeyaan to educate yourself amba inaad naftaada wax ku bartid waa faa'iidooyinka ugu badan weeyaan maadaama ay jiraan a lot of opportunity oo markii hore loo mari jiray rafaf badan oo imika oo kale for example may jirin imika waxaa jira majority-ga waxaa jira scholarshipyo online ah oo ay bixiyaan weliba jaamacado aada u qaali ah oo laga heli karin waddanka gudihiisa waxaa jira website oo la idhaahdo ma aqaan inaad aragteen laakiin dadka baadhaa maybe inay arkeen website la idhaahdo oo badankeenana magaaladeena amba waddankeena ka shaqeeya website-ka la idhaahdo dowladduna faraha way kula jirtaa baan umalayaa Coursera waa website aada u fiican oo maxaa la idhahdaa wuxuu bixiyaa masters aan laga heli karin waddanka gudihiisa waa faa'iidooyin badan oo laga helo social media amba waxaan odhan karnaa waa mid ka mid ah faa'iidooyinka laga helo social media waxyaabaha kale loo isticmaalaa waxa weeyaan to connect anytime inaad allaale meeshaad doontid ciddaad doontid iyo waqtigaad doontid aad ku xidhiidhi kartid oo informationkaad u baahan tahay aad ka heli kartid waxaa dhici karta inaad after few minutes amba before few minutes war adduunyada ka dhacay adigoo Soomaaliya jooga amba meel kaafuga ka dhacay aad daqiiqadaada uu kusoo gaadho waxyaabaha fudeydina waa social media waxaan oran karaa dee kulliba haddii aan idhaahdo faa'iidooyinka social mediahan tirinayaa uma maleeya caawdho inaan ka bixi karo walaalaheena igula jira barnaamijka ila daadahaynayaana wax badan bay kasoo sheegeen intaas ayaan ku dari karaa anigu thank you su-aashan samatar bay taagan tahay samatar waxaan ku odhan lahayn faa'iidarada uu leeyahay social mediahu bal adiguna wax nooga sheeg haddaan wax ka taabsado faa'iidadarooyinka uu leeyahay social mediahu waxaa ka mid ah in uu dadka waqtiga ka lumiyo oo qofku uu waqtigiisii waxyaalo badan kaga faa'iidaysan lahaa oo uu geliyo social mediaha waxyaalaha kale ka mid ah social media problemada uu leeyahay waxaa ka mid ah in uu depression dadka ku abuuro iminka Instagram-ka oo kale waxaa jirta waa meel dadku ay kusoo bandhigaan happy life-kooga oo kale sawirro qurux badan baa la soo galaa qofka ku jira Instagram-ka oo kale oo aan waxaa sameynin message indirect loo dirayo leeyahay nolosha saxdii waa sidaas oo sawiraanta la soo dhigay iyo qaabka sawiraanta loo galayo and then waxaad arkaysaa dhalinyarada iyo kuwa dayanaya qof ay u arkaan inuu road model-ka yahay maybe qofkaas inuuna wax badan sameyn laakiin uu sawiraan qurux badan soo galo maybe qofkaas inuuna happy-ba nolosha ku ahayn laakiin uu sawiraan fiican u soo galo laakiin inaad qofka moodo inuu nolol khatar ku nool yahay aad dabadeedna aad ku tala gashay inaad halkaa gaadho dabadeedna haddaad gaadhi weydo uu stress ku abuuraa ka mid ah problemada uu social media si guud bulsho ahaan inoogu hayo waxaa ka mid ah fake news-ka oo waxaad arkaysaa dad soo gelinaya waxyaalo badan oo problem ku ah dadnimadeena iyo dowladeenaba oo been sheegaya wax aynu ka qaban karnaa anu iska yariyo waxa jira social media maaha waxaan inagu samaysanay waa wax rag Americans ay sameeyeen marka social media ha dhex joogtid waxaad ku dhaqantaa sharciga qofka Mareykanka uu ku dhaqmo oo waxa social media ceeb looga yaqaan waxa America ceeb looga yaqaan waxa social media sax looga yaqaan waxa sax looga yaqaan America marka social media marka joogtid waxa tahay in ku dhaqmaya sharciga Americaniska tusaale imika berigi dhaweed Israel iyo Palestine markii la isleenayay Israel haddaad soo hadal qaado hate bal waxa la saariyay topic haddaad ka hadashid hate crime bal la saariyay waxa la lahaa waa hate speech oo kama hadli kartid dibadna waa la qarinayay faylkaaga marka problemada uu inagu hayay ka mid tahay bulsho ahaan oo inaynu ku salayn karin qawaacideena ama dawladeena shuruucda aynu leenahay inaynu ku dhex salayn karin Facebook dhexdiisa waxaa ka mid ah problemada social media uu leeyahay in dadka qaar ay iska dhigaan dad kale oo waxaad arkaysaa dad caan oo magac leh oo intuu mid samaystay Facebook magaciisa ku qoran oo magacii kaga faa'iideysanayo followers iyo likes dabadeedna waxyaalo badan oo qofka dhaleecaynaya amba ceeb ku ah uu soo dhex dhigayo
problemada social media inagu hayaa way badan yihiin laakiin oo imka dhamaystiri karmayno laakiin mar kastaba waxa fiican in bulshada laga wacyigeliyo lagu baraarujiyo dhinaca wanaagsan si aynu mar kastaba uga faa'iidaysano dhinaca wanaagsan intaasaan kusoo gudbinaa su-aashan kale aan weydiin doono Mustafa oo ah yani niga bodiniga waxaan Mustafa muxuu ku daray maasantahay muna problems fara badan waxa hadii laga sheekeynay kulley faa'iido darro u yeeshaa markii dad faa'iidada ka sheekeynay social media uu yeelanaya marka faa'iido darro fara badan qaarkood waa taabtay saki oo ay ugu horeyso mid aan isku raacayna ay tahay ku sii dheeraanayna hota loss of time in waqtiga naga luminayo waxa kaloo jirta in aan wada noqonay iminka social media addiction baa yimiday in qofkii waxaan addicted ba ku noqdayba oo qayb ay noloshaada ka mida oonad ka maarmayn oo noqday oo anytime markii dowladda Dr. Madar uu noo jeedinayay speechka waxaa arkaysa inuu ka sheekeynayay in dadkii iyagoo isla kala jooga haddana familigii wada fadhiyay ee wada deganaa qof walba meel huda ayuu kula jiraa mobile iftiinu baad arkaysaa wejigiisa hor yaalla la islama hadlayo laga yaabaa haddii qofkani waalidka ula hadlay inuu sii jeedaba ha iska odhanayo laakiin uu la socdo oo qof waliba markaa uu addicted ku noqday subaxii waa lasoo toosayaa waxaa la furayaa markaa social media la furaya Facebook ama Twitter ama Instagram problems fara badan ayuu leeyahay waxa kaloo uu leeyahay reputationka qofka inuu burburin karo for example qof imagekiisu bulshada ku fiicnaa in lagu burburin karo through social media oo iyadoo la adeegsanayo markaa propaganda foolxun oo kale hebel baasan iyo san xagga mare wada aragteen badankaan u malaynaya in dadka qaari dadkuna ay daba dhigtaan oo doonaan in social media ay ka dhaleeceeyaan markaa dadka iska maangaabkiina iyagoona hubsanba informationkiina oo hubsan waxa dhacaysa inuu share gareeyo ama comment ka bixiyo ama isaguna ku sii qoro isaguna hubsanba haddaba qof sharaf leh karaamo leh muslina oo garanaysid ayaa waxa lagu sameeyaa in lagu burburiyo sharaftiisii through social media iyadoo fake news lagu sameeyo news falxun ama qoraal farxun laga baahinayo waxaan run ahayn laga baahinayo waa disadvantageska uu leeyahay marka social media waxa kaloo problem ah in relationskii bulshada oo burburinayo social media waxa arkaysaa badanka waxaan aragnaa ama maqalnaa iminka statistics la sameeyay divorce statisticska dadkan kala tagaya ama familiyada burbura badanka intan dambe waxay ku burburaan waa social media waa accountkaas oo gabadha kula isticmaalayso ama adu gabadhii aad la isticmaashid oo xogta ayna qofka oo ku qancina warko then waxay noqonaysaa markaas problem weyn oo marka familieskii dhex jooga dhex taagan oo I think inaad marka aan isla dareemi karno disadvantage kale oo yeelan karo waxa weeye in markaan bulshadeena waliba u nimaadno environment-keena markaan u nimaadno markaas aw si foolxun u hadlo aw waxyaabo khaldan u soo dhigo Facebook-ga laga yaabaa in videos foolxun u soo dhigo laga yaabaa in markaa aw dad u caayo uu soo galo idan qofkaasi popular buu noqdayba Sheekh Mustafa Burcayaan inaad khudbadiisa shirada ku soo qaatay inaad maqashid mooyaan wuxuu lama arkin ummadan oo dadkooda walwaalan daawata oo ku xidhan lama arkin buu moogta iminka haddii aan isweydiino inteena xaggan joogtaa dadkeena bulshada muhiimka u ah ama aqoon-yahanka ama doctorska ahaadaan seed ugu xidhan tahay haddaan isweydiino ama ma taqaanaa pageskooga maad ku xidhan tahay pageskooga ma taqaanaa maad ku xidhan tahay laakiin haddaan isweydiino dad fara badan oo social media si foolxun u isticmaala oo inaguna waliba inaga dunida dee celebrity-ga dunidu celebrity waa dadka caanka ee dunida caanka marka celebrity-gana inaga yaa inoo celebrity horta maan isweydiina Soomaalida yaa inoo celebrity-gana waxaad arki dee dad aan bulshada wax xun maahay wax wanaagsan aan kusoo kordhin badanka ayaa noogu caansan pageska ugu followerska fara badan leh ma adeegteen dadka ugu followerska badan aad loogu xidhan yahay followerska ugu badan leh waa dad aan bulshada wax badan kusoo kordhin
ama hadaluu kusoo kordhiyaa ama video maanta oo dhan comment ka bixinayaa buu ama hees baan comment ka bixinayaa ama qof uu caayaya dadkaasaa lagu daawasho badan yahay waxaad arkay xataa inta comment ee ku dhacday inta share ee ku dhacaysa videogaas laakiin arki maysid qof bulshada xog wanaagsan u wada ama aqoonyahan weyn ah oo xog uu soo dhigay la wada share garaynayo ama la wada like garaynayo marka waa sida foosha xul inagu isticmaalayna way marka social network waliba markaan bulshada idhaahno laakiin dunida kale waxaad arki dee dadka caanka ee wax laga faa'iido ama celebritiska waa qof talent ah waxa uu caanka ku noqdayna aad u garanaya oo muhiimna ah laakiin qof aan waxba soo kordhinay cidna ma follow garayso cidna ma daawato dunida kale inagu laakiin qof maanta oo dhan qof aflagaadaynaya ama qof wax macno la soo kordhinay ayaan ku xidhannahay pagekiis baa la wada laagareeyey comment baa la wada bixinaya hadduu soo galo live soo galo intaasoo qofaa daawanaysa sharekiisu intaasuu dhaafayaa for example fanaan baa hees soo tumaya kale fanaanada dambe imka aragtay baan malaynaya say fankiisu xag u maraya dee hadda dadkii o dhan waa laisla wada garanayaa inuu qofkaasi wax muhiimana ku heesayn si muhiimana u heesayn midhahu adeegsanaya inuu jirin laga yaabaa inuu xataa waxyaabaha iska foolxun iskaga jiraan heesiisa haddana fanaanka viewskiisu intay mari karaan wadayaas hawaday ka baxayaan marka qofkaasi markii koowaad ee uu wax soo bosbarayay haddaan discourage garayn lahayn haddii loo arki lahaa qof xanuunsanaya oo faa'iido lahayn oo qofna unu daawan lahayn dee videoga labaad muu keeneen mar labaad iskumuu dayn inuu sameeyo try labaad uu sameeyo laakiin markaan views qayra caadi ah uu helo share qayra caadi ah helo intaasoo like ah helo finaaniskii caadiga waaweynaa iyo dadkii bulshada waaweynaa ee culusaa ku jiray oo ka view bataba oo buraha bulshada isagu lagaga sheekeeyo muuna sii wadaynin dee haddana mid labaad buu keenaya marka mid saddexaad caam buu noqday very popular buu noqday markaas marka waa faa'iidarada inagu leeyahay environmentigana weliba ku yeesha ay ka mid tahay intaasaan kaga bixiya aniguna bal fikirkayga aan ku darsadee social mediaha dhibaatada uu ka taagan tahay baa ah qof baa wuxuu samaysanayaa akoonkiisii saxdii haddana wuxuu samaysanayaa mid aan kiisiiba ahayn oo wuxuu samaynayaa hadallo aanan jirin sawir qof kale u soo qaadanayaa uu ku bahdilayaa run ahaantii ma qurux badna inaad sawir aanad adigu ahayn intaad soo qaadato aad tidhaahdo sawirkaygii weeyaan waa aniga qofkaan ahay qof aanan war u hayn oonan joogin oonan xitaa warba u hayn oon isticmaalin social mediaha intaad qaado ood sawirkiisii soo qaadato ood tidhaahdo hebel baan ahayo kanaan ahay wallaahi ma qurux badna aniga xitaa ilamay qurux badnayn inuu qof sameeyo laakiin dadkaa ku samaysanaya siduu sheegay mustafe waa laangaab baan odhan karayaa waa laangaab marka barnaamijkeena run ahaantii wallaahi xiisad gaar uu leeyahay dhammaantiin waa idiin mahad celinayaa sida sharafta le milgaha leed nooga soo qayb gasheen barnaamijkeenan qof walba waxaan ugu mahad celinayaa milgaha iyo sharafta iyo maamuusta uu howlka ku fadhiyo waad mahadsantiin baan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad su-aashan kale waxaan weydiin doonaa mustafa oo meesha fadhiya run ahaantii waana dean faculty-o waxaan leenahay dee su-aalaha aan weydiiyana isagu wuu ka jawaabi karayaa general practicals to security password and make them unpredictable. English baad igu weydiisay macnaha passwordkaaga iyo security-gaaga seed u adkeyn kartaa account-kaaga ways fara badan baad u adkeyn kartaa faaduma mar bay taabataan u malaynayaa in marka koowaad account-kaaga samaysanaysid aad passwordkaaga horta passwordku waa keyga security-ga wey oo waxa kaliya marka koowaad isku ilaalinaysa waxa dambe ha dambeeyaanba laakiin passwordku waa number 1 inaad horta passwordkaaga strong ka dhigtid badanka nagu passwordkeena strong kama dhigno magacaaga iyo ama hooyadaaba soo qaadana 1 2 3 baad raacin ama numberka telefoonkaaga iyo magacun baad isa raacin magacaaga hore ka fikri maysid ba inaad strong ka dhigtid laakiin passwordku waa inaad strong ka dhigtid waa very important way hatta Facebook wuxuu kugu encourage gareynaya ku sheegaya marka koowaad ba passwordkan aad samayso waa la qiimeynaya markaste ma strong ba ma weak ba ma middle ba ma fair ba marka adigoo weak iyo loogu soo qoray arkaysid hadaad proceed iska sii tiraado iska sii wadid de marka riskiga adiga marka u bareeray marka kana fikir markaad account samaysanaysid markii dhow waxa sheegay
around 3 billion people baa Facebook isticmaala markaad account samaysatay Facebook-a micnaheedu waxay tahay waxaad ku soo biirtay bulshada intaa leeg ayaad ku soo biirtay wey ee le mid wanaagsan mid xun mid adiga kusoo ataagarayn kara mid adiga wanaag kugu kordhin kara bulsho qeyri caadi aad ku soo biirtay marka bulshada weyskaad ula tacaamul lahayd waa inaad ka fikirtaa ma inaad intaad dalaq iska soo tiraadid social network-ga waxaad doontida soo bosgaraysid cidda doontida aad ka ceydid meesha waxaad doontida soo qortid it's not like that haddii aad doonaysid inaad secure ahaatid waa inaad taqaanid principleska aad ku joogaysid meeshaas haddii for example magaalo aad tegaysid oo kale ama dal aad tegaysid ruleska dalkaas u yaallaba ayaad ku socontay waa duni kale markaas social network waa duni kale Facebook markaad kusoo biirtid is another world way waa world kale markaa rules and regulationska u yaalla eed ku joogaysid waa inaad taqaanid haddii kale you are done waa lagu burburinaya si fudud waxaad ku adkayn kartaa markaa security-gaaga waxa weeye for example Facebook oo kale wuxuu leeyahay security fara badan oo Facebook uu leeyahay options fara badan laakiin aad uma isticmaalno password-ka mana ka nimaadno for example wuxuu leeyahay wax loo yaqaano two factor authentication weli ma isticmaashay intiina meesha joogta I think inay qaarkiin u isticmaaleen waxa weeye two factor authentication waxa weeye in device-ka aad ka isticmaashay maaha device kale aan laga isticmaali karin account-kaaga for example device-kan umaan ka isticmaalay Facebook-ayga ka galay haddii aan device kale Facebook-ayga ka galayo waa inuu message iisoo tuuro uu leeyahay device-ka lagama gali karo recognizer maaha waa inuu aniga igu idhaahdo markaas device hebel baa laga galay laptop baa laga galay HP ah oo hargeysa yaalla ama xaggaa yaalla ma adigaa qofkaasi buu iisoo tuuraya message noocaasa haddii markaa haan idhaahdo proceed baan haddaan noo idhaahdana xataa haddii qofkaasi username password-kayga hayo ma gali karayo hadduu xataa username password-kayga hayo oo nimka ku siiyaan username-ka password-kayga ma geli karaysid sababtoo ah device-kaasi kuma risgari account-kayga kuma risgaraysne markaa lama garanayo lama aqoonsanayo anigu ilaa anuu soo weydiyo on idhaahdo device hebel waa aniga ee siidaa markaas umaad gali karaysaa xataa haddaad password-kayga haysid ma gelaysid security fara badan buu leeyahay waxaa kaluu leeyahay feature security-a wuxuu leeyahay Facebook for example maadaama Facebook examples waxaan ugu soo qaadanaya maadaama isticmaalkiisu fara badan yahay oo waxaan isticmaala badanka uu Facebook oo yahay wuxuu kuu sheegayaa inaad ogaatid way fiican tahay meelaha lagaga jiro account-kaaga weli baad eegtay account-kaaga meelaha lagaga jiro place-ka lagaga jiro for example laga yaabaa in users kale ay kaa isticmaalayaanba Facebook-gaagi maxaad ka ogaanaysaa account-kaagi bilow waa lagu jiraa oo meelo kale lagaga jira another places marka wuxuu ku siinayaa feature ah waxaa jira qaybta security-ga hoos timaada Facebook-ga oo kuu sheegayo how many places ba ayaa laga access-gareeyay account-kaaga ilaa imika maxaa active laakiin imika keebaa ku jira laakiin bilihii ugu dambeeyay intii ugu dambeeyay xaggee laga access-gareeyay marka haddii aad aragtid meela device aan familiar kugu hayn ood ka gelin disconnect ood ku samayn kartaa marka waad ka saari kartaa waxaa kaloo muhiima sometimes in aad samaysatid waxaa jira Facebook wuxuu ku ogolaanaya wax loo yaqaano legacy contact waxa weeye waa user aad ku kalsoon tahay oo haddii account-kaaga wax kastoo ay ku dhacaan aad markaaba isaga la xiriirisid account-kaagii si fudud kugu soo celin karaa waa legacy contact baa loo yaqaanaa ama wuxuu samayn karaa haddii qofkaasi au dunida au dhaafo oo kale oo tiisi au timaaday waxaan aragnaa badanka markii dhow Dr. Madar wuxuu ka sheekeynayay in ay Facebook-ka ku jiraan dad reer aakhirada xataa oo mar hore geeriyooday marka explanation kaseed u qaateen markuu kelmadda uu sheegay oo lahaa dad reer aakhirada ku jira wuxuu uga jeeday dad dhintay accounts-koogii baa weli ayaa active ah marka qofkaasoo kale see zero full loo disable garayn karaa waxaa disable garayn karaa feature-ka legacy account-ka waxaa loogu talagalayba in qofkaasi uu xidho marka Facebook-ga qofka legacy contactaas inuu markaaba qofku strange ku yahay soo maaha magaciisu baa isbaranaysiin information kale sii maysid hebel iyo hebel baa la yidhaahdaa marka social isweydiinaba ahayd Facebook markaad kusoo biiraysid social network markaad kusoo biiraysid waxaad kusoo biiraysaa 3 billion meelahaas dad ku dhow maxaad xogtaada oo dhan ugu sheegaysaa markaas magacaaga aad u sheegaysaa xilligaad dhalatay aad u sheegaysaa ku qoraysaa meesha public telefoonkaada aad ku qoraysaa waxaad ku qoraysaa xilligaad dhalatay inaad married tahay inaad single tahay baad ku qoraysaa waxaad ku qoraysaa meeshaad ka shaqaysid baad ku qoraysaa meelahaad ka shaqaysid carruur intaad leedahay baad qoraysaa adduunkii baad waxaad la wadaagtay xogtaadii oo dhammaystiran baa siisay adduunkii
laakiin qofkan ku hor fadhiya ee iminka aad baratay isbarateen magacaagu baad u sheegtay marka what is the difference qof strange oo meeshuu doono dunida joogana xogtaadii oo dhan baad la wadaagtay qof aad garanaysid oo hebel aad garanayso magaalada ku aragtana oo maanta qof iskiin barana hebel baa la yidhahdaa baa tiro information maasiin oo haddii xataa ku sii weydiiyay information dheeraada oo telefoonkaaga isha ku laga yaabo siro kala warkii soo ma qof aad iminka isbarateen noo xilli ma dhalatay aduu ku dhaaka hor maxseed warkaysaa way strange soo ma wax iroonaysa qofka waa sidee laakiin markii koowaad dunida ku soo biiraysay dunida waxa sheegaya social network-ga de wax kasta u sheegtay marka bal su'aalahaas aan isweydiino isku day less privacy inaad noqotid xogta aad gudbinaysaa public-ga ka ah iminka bal account-skiina yar wada gala I think information kaas oo ku daabacay ma malaynaya telefoonkaaga xilliga dalatiyo xagga joogtid iyo waxaad ka shaqaysid iyo carruurtaadii ma single baad xataa maarid xataa single iyo maarid baad u sheegaysaa dunida waqti inta carruur leedahay marka isku day inaad less private kaaga inaad very strong ka dhigtid information aad public ka dhigaysid isku day bal inaad aad yareysid marka marka adigu is ilaalisid then more private baad ahaanaysaa markaas marka passwordska waxyaaba ka nimaadna marka hore bal information kaaga bal secure ka dhig then you will be more safe ahaan marka su-aashana waxaan weydiin doonaa Samatar ma loo baahan yahay in sharci qabta loo sameeyo dadka dhibaatooyinka ka geysanaya social media waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay sharci qabta dadka social media dhibaatooyinka ka geysanaya weliba iminka golo baarlamaan oo aad u active ah ayaynu dooranay 11 May marka waxaan rajaynayaa in golayaasha baarlamaanku ay ka doori doonaan ma aha un social media laakiin cyber security oo dhan sharci qabtay in loo sameeyo si qofku uu ay timaado waxyaalo uu ka baqayo in uu la kulmo iminka Mareykanka oo kale waxa jira gobolka California haddii aad qof matasho oo isku daydo inaad qof magaciisa ku soo gasho dabeedna qofka dhibaato gaadho amba ceeb aad gaarsiiso waxa lagu xukumi karaa 1 sano iyo $1,000 oo muxuu ahaay lacagta dollarka Mareykanka marka inay jiraan consequences qofku uu ka baqayo haddii uu social media wax dhibaato ka geysto ama uu qof iska dhigo in uu qofkaasi dhibaato la kulmi doono in dawladuna iyaduna dhinaceega ka naga caawiso bulshahan rajaynaya Faadimo Axmed nagu dari oo loo baahan yahay in la sameeyo sharci qabta laakiin ka hor intaana sharci la qaban amba sharci qabta qofka loo sameeyo waxa fiicnaan lahayd in dadka la wacyi geliyo oo waxyaabaha dhaqan ahaan fiican in social media la sameeyo iyo waxyaabaha dhaqan ahaan xun loo kala saaro lagu kala dhado waxaasna wuxuu yahay waxaasna uu fiican yahay maadaama dadka majority-ga isticmaalaya oo na jirin qof la oran kara waa under age amba qof daahan ahayn qaangaar ay isticmaalaya social media oo uu yahay qofti la oran karo waa qof daahan wax khaldan iyo wax fiican kala saari kara marka waxaan oran lahaa intaana sharci iyo waxyaabahaas qofka qabta loo sameeyo in wacyi gelin iyo waxyaabaha la sameeyo Mustafa nimkan u dhibi doonaa bal كل دنبيدا كدعا social network waxa loo yaqaanaa cyber crime wadambi way dalahaana uma malaynay wali ilaa imkayna shuruucayna uga qorayihiin qofka cyber crime ka sameeyo kale social network dambi ka sameeya in maxaa ka qoran dalahaan for example waxaan arkaynaa dunida kale imka example bi noo soo qabtay Zaki dunida China oo kale dawoo ka xidhan social media Facebook iyo WhatsApp waxa ma isticmaalaan oo their own applications iyaga u gaaro dawladdu maamusho oo wax kasta lagala socdo ayay isticmaalaan China Jarmalka oo kale rules gaar ayaa jiro oo ah for example pageska followerska faraha badan ay ku xidhan yihiin followerska faraha badan leh waxa jira pages more than 1 million 2 million 1 million 2 million daafo kale page
marka pagekaasi macnaha waxay hayaan users fara badan bay hayaan dad badan baa ku xidhan 2 million ciyaar ma iyo 3 million iyo 5 million pagekaas in si gaara dawladdu ay u samayso ay ula xiriidho xogta meesha ka baxaysa inayna easy noqon xog dadka burburinayso kale for example the pageka qofka ku xidhan yahay 2 million xog khaldan la gudbiyaa micnaheedu waa dambi weyn soo maaha isagoo intaasoo user ay ku xidhan yihiin qofkaas waa in si gaara ama userkaas ama pagekaas waa in rules ay ka jiraan oo ay reportii ay ka helaan dawladdu dee too many people qof ay ku xidhan yihiin xog khaldanna siiya waa in markaas shuruuco gaaroo xidhaya weynay jiraan markaas waa in markaa la yidhaahdo dawladda low noocan oo kale la sameeyo ah pagekaasi hadduuba intaa dhaafo shuruuc noocaasu ku soconaya markaa isla qofkaas markaa muxuu keenayaa in uu ilaaliyo xogtan uu bixinayo markaa uu ilaaliyo laakiin iminka waxay noqotayba in qofkii accountka uu lacag ka sameeyo intaasoo qofaa igu xidhane dee macnaha ku advertise gareeya ama xogta aan bixiyo lacag bayba ku xidhan tahay is a matter of money inaad ku tiraay intaa dhowrkaa boqol qaado xogta ay gudbi markaas isaguna xogta uu gudbiyo xogtu waxay doontaa ahaato ama misinformation ha bixiso ama dad ha burburiso ama dawladda ka hor timaado isagoo lacagtiisa u qaatay millions ku xidhnaan uu gudbiyey markaa in shuruuca laga keeno wey ta kale waxa weeye dad badan oo isku dhaca way jiraan oo isku qabsada social network dad badan oo isku dhaca oo xataa dacwad isla gala stationka isla taga ani dhowr jeer waa layla soo xidhiidhay dad aan friends nahay account hebel baa inta layga jabsaday baa sawir in la qaatay qofkaasaan ka sheekisanahay kaalina kala saar meeshii baa waa la isu qaydhay marka maan gelin hawshaas laakiin taa micnaheedu waxay tahay in dawladdu laftarkeegu ay leedahay qaybtan qayb ICT persona ama qof cyber security professional ah oo ka caawinaya dadkan isqabsanayla waa crime ummadii oo dhan imika waxay ku xidhan tahay waa social network wey hadhowna waa la isku dhacayaa hadhow marka cid kala saarta oo accountskii gali karta hubin karta markaa sidee waxaan markaa ay u dhaceen intii individuals gaara dee loo yeedhi lahaa oo na kala saar la odhan lahaa waa qasab in lowis loo sameeyo waxaasoo ummada ku xidhan oo isticmaalaysa social networki markaa bilaalow ma noqonaysa dee in lowis ay jiri waayaan marka kolleyta wasaaradda weyn la joogtaa wayna maqlaysaa way ku jiraan mar malaynayaan waxay u dhigan tahay sida tanaan soo wado imika whatsappka yacni linki baa lagu soo diray waxa lagu odhanayaa waxaad ka samayn kartaa lacag waxaad ka samayn kartaa maxay adigoo galaya markaa wuxuu ku odhanayaa intaay qof usii faafi yacni sideed ku kala garan kartaa linkiyada saxda ah iyadoo ayna jirin linkii saxoo weli lagu aflaxo oo lacag laga sameeyey laakiin laysku soo diro yacni inuu haakar wato iyo in yacni caadi yaho linkigan sharinkan aad samaynayso qofku ku faa'iidi karo isagoo gaarkiisa qofkii soo sameeyey lacag ku samayn karo marka ma sideen ku kala garan karnaa linkiyadaas inuu qofku inuu ku faa'iido ugu talagalay iyo inuu markaa waa iska obin kiini doonaa saddexdiina ka jawaabaya waa mahadsantihiin magacaygu waxa weeyaan Suleymaan Axmed Cumar waxaan wataa laba su'aalood baan wataa su-aasha u horeysa waxayna leedahay marka loo eego waqtiyadii hore ee aan la isticmaali jirin macnaha social media oo kale marka la eego aqoon ahaan ama bulsho ahaan marka dadka macnaha aan aqoon ahaan u noqono xaqii macnaha duruustii oo kale u noqono imika marka baxadana loo eego dhalinyarada imika ama waqtiyada imika aan joogno social media sida loo isticmaalo wuxuu leeyahay advantage and disadvantage buu leeyahay marka advantage-kiisa iyo disadvantage-kiisa shay kastoo la soo qaaday wuxuu leeyahay disadvantage and advantage buu leeyahay markaas waqtiyada duruusta marka dadku ay akhrinayaan oo kale imika shay baa qofkii wax loo dirayaa assignment oo kale loo dirayaa ama su'aalo la weydiinayaa wuxuu ku laabanayaa social media dadkii markii waqtiyada hore aan isticmaali jiray aan maxaan social media aanu jirin duruustooda waxay ugu noqon jireen maskaxiyan ama duruustii boogtii loo dejisnaa macnaha waxaanay dalka oo kale u dejisnaa ayay dib ugu laabanayaan ama ka soo raadinayaan laakiin imika social media ayaa markaas wala tagaya marka ma oran karnaa dadkii waqtiyada joogay macnaheedu way ka aqoon badnaayeen dadka imika jooga mise wax oran karnaa waxa ka aqoon badan ama ka maxaanay ka chance fiican dadka imika jooga markaas su'aasheeda labaad waxaan gaar ahaan weydiinayaa macallinkayga sharafta leh Mustafa Maxamed Cilmi waxaan noo yiri su'aasha maxaanay su'aasha sanadtan bay leedahay su'aashu waxay tiri
wuxuu macalinkeenu soo sheegay marka aad social media هذا واحد محنا ثاني صيانات ضحك شو كلام ما بالشدة ضدك بدنا استعمالية أتكون بيرتو سؤال بدنا بدو شيء بس ضدك معناها ما وحنا information هذا بدو قرر من ضدك سو كلام قف كل شيء أما سو أتكون مرات هول كأنت جوكتو استغنا محداني حدوك ويدي ما عاقل بعد وقت كنا قصة قف محسن كل الليلة مركز حدي أنا بحضرين عن سمي استعارض محداني يشك فيسبوك وكله ويديني سؤال هذا كله ويديني marka maxaan kaga maarmi karaa oo maxadanay su'aalahan kaga maarmi karaa oo weydiinayo oo si kooban aan ugu sheegi karaa magacayo kaliyateeda ilaa waxaan rabaa inaan sameeyo su'aalanay Facebook ama aaladaas inaan sameeyo markaan rabaa thanks ma jira qof kale oo su'aal haya oo weydiinaya isagoo ka dhamaana waayo saddexdaas su'aalood bay nooga jawaabi doonaan cabdiraxmaan سؤال شهور إنه يدي واحد هيد لينكس كا الله كله صار شير كريه for example واتساب كمان فيسبوك اللينك بالله هو صادر يا اللي يقوله هاي لينك يعني عدد كله فتيد لعق بعد هلي أما ويب سايت هبل بعد داون something like that مرة اللينك كا إسكام كأه أما إسبام كأه أما فيروس كأه يلينكس كعادي كا سينو كلا جرانينا واحد جرا مرة سايت لسمين يو بروتوكول اسمه راعان لا يقانو HTTPS Hypertext Transfer Protocol waxa lagu raaciyaa waxa la raaciyaa certificate kan loo yaqaan SSL certificate badanka marka website-da la galo waxaad arki xagga sare markaad URL-ka ku qoraysid domain name-ka waa inuu locker saaran yahay website-kaas lock quful ayaa saaran badanka inaad aragtid mooyaane website-ka quful uu saaran yahay HTTPS buu leeyahay protocol-kii loogu talagalay communication-ka lagu sameeyay ayuu leeyahay certificate-kii security-gana uu leeyahay then waxaad ogaanaysaa marka site-ka inaad ku kalsoonaan karto xogtiisana aad akhriyi karto aad marka wax ka download gareysan kartid laakiin haddaba protocol-kii loogu talagalay saxdii ee standardkii hadduna raacayn waxba kama daalacan kartid waxna kama iibsan kartid oo credit card information-kaagii ma dhex marin kartid taasaan ayaan kaga gudbi karaa su-aashaas waa inaad ase lockid ahaan aad eegtid iyo protocol-kaas aad eegtid su-aasha tii labaadna weydiisay tiimkayga kala ludayn su-aasha uu tooska i weydiiyey Suleymaan ee ahayd markii dhow waxaad nooga warantay way igu yidhi haddii aad qof imka isbarataan oo kale information-kaaga inaad la share garayso way adkaanaysaa oo magacaagu baad u sheegi laakiin dunida kale markaad u sheegaysid aad account samaysanaysid information-ka o dhan baad la share garayn laakiin Facebook-ka ku weydiinaya wuxuu birthday-gaaga geli iyo number-kaaga geliya buu ku odhanayaa waa run waa waxyaabaha lagu sameynayo form validation-kay ku jiraan in aad account-kaas samaysid form validation-ka magacaaga inaad gelisid email-kaaga aad gelisid birthday-gaaga aad gelisid telefoon-kaaga geli buu ku odhanayaa information-kaas oo dhan ku siinaya laakiin option kale haddana ku siinaya marka dambe information-ka inaad samaysay oo private ma ka dhigaysaa mise public adigaa iskale markaas option-kaas marka hore by default waa public waa sii dayn kartaa laakiin haddana option wuxuu ku siinayaa information-kan xogahaagan ma private baad ka dhigaysaa markaas haddaad markaa private dooratid then xogtaadi markaa aday private kuu tahay formkiina waad buuxisay waad account-ka waad samaysatay haddii laakiin public ka dhigtina information-kii dadkii oo dhan baa markaa ay la wadaagtay marka taana kaga jawaaban malaynayaa private ka dhiga markaa xogtaada su-aashaadii labaad iyo tii labaad tiimka waxaan udayay markaa su-aashii cabdiraxmaan ee dambe iyo su-aashaadii hore tiimkaan uga bixi markaa iyagu soo igu daraan horta waxaan hambalyo u dirayaa dadka amba maxaa la dhahdaa daawadayaasha fiican amba dadka kasoo qayb galay barnaamijka ee isku dayay inay su-aal na weydiiyaan ay xagga soo joogsadaan waxaad leeyahay congratulation labada qof amba labada dhalinyaro haddii aan kaaga jawaabo Suleymaan baan jeclahay su-aashii aadna weydiisay ee ahayd qofka maanta marka aqoon la doonanayo oo kale markii hore dadka aqoontooda buug iyo waxbay ku salaysneed maantana waa internet run haddii la sheego maanta ayaa ka fiican laakiin waxaa la dhahdaa nimco kastaba nusqaan leh adduunyadu ma waa 9 ma tobanoodo
ayada ood maanta cilmigii haysato ood waqtigaa doontidaad helaysid xilligaa doontidaad gaari karaysid maybe inaad maalinta kumanaan buug amba kumanaan aqoona aad korisatid ayaad haddana ka faa'iidaysan karayn oo qofku ka faa'iidaysan karayn mid way kaga fiicneed markii hore aqoonta loo lugeyn jiray oo waxaa la odhan karaa adadayga iyo waxyaabo badan baa laga baran jiray laakiin maanta marka la joogo aqoonta maanta la joogo ayaa ka fiican maadaama ay aqoontii gurigaaga kuu dhex taalo taleefankaaga la odhan karana jeebadaadaad ku sidataa oo waxyaabaha badan ee badanka laga helaa waxa weeyaan inaad taleefankaaga oo kale aad ka akhrisan karaysid midda kale waxaan xasuustaa waqti aan secondary ahayn ayaa macallin baa wuxuu nagu yidhi maalin assignment intuu noo diray ayuu nagu yidhi assignmentka ka soo shaqeeya markaasaa markaana dee social mediaha amba waxaad isticmaalaysa aad aqoon u lahayn dhibteeday leedahay I think inay ahayd 2012 waan jeclahay waxaan sameynay dhammaan ardaydii galaaskoo dhan intay aqoontii website-ka ay dhex galeen amba meesha information-ka ka soo qaadeen ayaa waxay sameeyeen copy and paste waxaa jira nambaro yar oo markuu definition-ka oo kale imkoo kale wuxuu kuu sharaxayaa wasa social mediaha markuu kuu sharaxo definition-ka koowaad wuxuu kugu hor qorayaa number 1 definition-ka labaadna waxaa dhici karta inuu maybe number 2 kugu dul qoro waxyaabihii oo dhan copy and paste ma soo siinay kabacdi macallinkii baan u geynay waxaan xasuustaa maalinta assignment-ka macallinkaas wuxuu ku rabay 5% amba 5 darajo ayuu ku rabay 5tii darajo ku rabay maxaad ka filaysaa ardayga intuu soo galay copy and paste leen cid soo akhriday ma jirine dhammaan ardaydii galaaskoo dhan wuxuu soo dhijiyay 0/5 xataa arday keenay muu jirin 1 marks waana aqoon darrada waqtigaa jirtay laakiin maanta waxaan odhan karaa haddii aad aqoon doonaysid amba cilmi aad doonaysid wuxuu ku jiraa your home weliba wuxuu kuugu sii jiraa jeebadaada maanta ayayna aqoontu ay ka faa'iido badan tahay amba inuu qofku wax akhriyo oo wax baadho maanta laga faa'iido badan yahay aqoonta maanta joogta iyo research-ka maanta la sameeyo ayaa midkii hore ka faa'iido badan ayaan kugu odhan karaa haddaan isku dayo su-aashii wiilkaasina weydiiyey ahayd masterka arka policy ma ka leeyihiin ay kugu soo celin karaan qolooyinkan bangiyadu uma malaynayo masterka arka in ay lacag uu qofi isticmaalay amba uu qof kale ka xaday oo kale inay lacagtaas soo celin karaan anigu personally baan weydiiyey oo qolooyinkan premium bank baan ku leeyahay mastercard waxaan ku yiri haddii mastercardkaygaas oo kale meel si qalad ah ku gasho wax ma ka daba tegi kartaan oo lacagta ma soo celin kartaan waxay igu jawaabeen maya laakiin waxa jirta si aad u alaalin karto amba aad meelaha saxda amba meelaha qaladka ee mastercardka gelinaysa aad ku galan karto waxa ka mid ah xabadii uu macalinku inoo sheegay ahayd security-ga HTTPS-ka oo website-ka HTTPS-ka encryption baa ku jira marka haddaad xataa mastercardka geliso qofka website-ka samaystay ma ogaan karo datadan aad gelisay laakiin hadduuna website-ku encryption una ahayn daatada sidaad u gelisay koorkaagii mastercardkaaga xilligii uu dhacayay kaarkii yaraa xagga lambarkii yaraa xagga dambe waxaasoo dhan uu heli karayaa marka badanka adiga ka mas-uula waxa soo gaadhaa muxuu ahaayey account-kaaga qolooyinka iyagu daarasalaam ba waxay leeyihiin account-ka iyo waxa u kala qaadan visa kaarka markaad account-ka lacagta ku shubato lacag $2 oo kala laga qaadaya dabadeedna intaad wareejiso ayaad visa kaarka ku shubaysaa marka kuwaasoo kale way fiican yihiin oo haddii dhibaato timaado wixii visa kaarka ku jiray unbaa lala bixi karaa laakiin qolooyinka premium bank iyagu gaar ahaan waxaan u rabay inaan weydiiyo samatar maadaama tiri waxaan u sameynaa dee ama aan ku shaqeynaaba IT-ga maxay website-yada iyo systemyada kale ay rabaan bulshadeenu maanta haddii aan u fiirsano ama dee aan eegno ganacsadeena maanta waddanka joogtay ma aqoon buuxda uma laha maxay in IT-ga ama haddaad system u samayso uu wax badan ka fudaydin karo ama website haddaad u samayso kale dee uu wax fiican u qaban karo ma garatay marka sidaad u qancin lahaydeen ama sidaad caqabadii kaaga hor imday ama sidaad u qancisay gaar ahaan adigan ku weydiinayay guud ahaanna waad iga jawaabi kartay marka hore aad baan u salaamayaa dhalinyarta quruxda badan leh assalaamu calaykum marka hore aad baan u salaamayaa dhalinyarta quruxda badan leh ee ku hawlan inay qurxiyaan magaaladeenna marlabaadka waxaan salaamayaa marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh ee ka soo qayb gashay madashan aadka u bildhaan ee qurxan su-aashaan kuu hayaa waxay tahay yani nii hayaa waxay tahay social media aan isticmaalno Facebook hadhihin Instagram Snapchat wax
أي علامات والبولية هي سوشيال ميديا هو الله استعماله وحليه ريكويست أنه والله قصة عصنا يا أنه حفظ عصنا يسا مركها سؤال أن والله واحد هاي ريكويست قاع ملاي هاي ميل أتكسر عشان كرتها دوت ولا قفكي أتصطي بساعد ما لا سمين كره حير قبته سوشيال ميديا واي سؤالشان إذا يدينا واحد هذا إنك صوت شباب أركب حسين سوشيال ميديا شركة ذاله إمك عدي أدعو إن تلفون أنت لقاسو عايو وحلقوا هذا وطيب السي اي دي تكتو ترى تلفون كاس اللي قاسو عيلان مركا شركة الحرير لا ليدا والشركة دي باك أب لا سمينا سوي تراك لقوس سمينا قفكي هذا بقى سيدا أيو دعسة إذن كو يوسريس أم با دولود يوسر كتاي والشركة دي بدأ ها حرير آن للحين إن ترادان حير ما أصمين كرنا وحير قبتها مشرا سؤال شيء أنت عصيته السلام عليكم وسارة آد لهم العلية برامجك غرفة بدن iyo teamka maaragtay wacyigelinta iyo qaabilsanaa marka baad magacaygu waa Maxamuud Cabdisalaam Cadeed waxaan rabaa inaan weydiiyo ustaad Mustafa oo anigu ustaadkayga ah ciwaankaaga Facebook hadduu hadda qof kale u isticmaalo maxaan ku ogaa karaa si automatically inuu qof active gareeyay saan wada ognahay Facebook-een aad wuxuu yahay weak oo password-ka isticmaalo waxa kamid ah hooyo 123 ama qof baa wuxuu ku soo dirayaa niyo ciwaankaygii bal ii hagaajiyo ii fiiri isagoo aad ii soo marka si maxaan ku ogaa karaa si dhakhso leh hadda anigu aan qof ciwaankiisa aan helo passwordkiisana aan helo oo aan active noqdo waxyaabo badan soo dhigi karo in automatically uu isu qofkayga in uu account-kaygii uu active yahay su'aasha saaro inaan awood maadaama dadka Soomaali dadkeenana maartay ay aad aysan u fahansaneyn oo qof walba raba inuu si dhakhso leh u ogaado barnaamijkaas baan su'aasha saaro inaan weydiiyo guud ahaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka wax badan waa mid loo baahan yahay wax la ilaa halkaas ka sii wado weekly iyo monthly ha noqdo marba maartay bishada loo soo bandhigo aniga toos la weydiiyo guud waxay ahayd ninka xagga dama fadhiya ay soo iloobay wuxuu weydiiyey qof aan friend request u dirsaday macnaha aan codsaday saaxiibtinimo aan ku codsaday Facebook oo kale friendship-kii ma kala noqon karaya steps fara badan baa jira oo qofka iskaga joojin kartid for example marka koowaad steps-ka yar marka koowaad waad dirsatay codsi baad dirsatay friend request-gaasi marka stage-kaas uu imka taagan yahay qofkii inuu ku soo aqbalo marka isaguna ku soo aqbalin cancel waad samayn kartaa markaas cancel request intuu ku soo aqbalin haddii uu ku aqbalay friends batin already marka waa inaad haddii qofka aad doonaysiin haddana friendship-kaad kala noqotid option wuxuu ku siinayaa Facebook waa unfriend samays dib aad ugula noqotid haddii marka ay sii fogaato arrinku dee qofka userka gabiisaba si aanad information-kaagana u arkin adiguna u arkin profile-kiisa option kale oo jira waxaa jira block oo qofkii aad iska saari kartid gabiisaba suuna kuu soo hataa kuma soo search garayn kara hadda block samaysid saasaad stepskaasaad marin kartaa haddii aad qofkii aad doonaysa inaad iska xidhid su-aasha kale tooska la weydiiyey waxay ahayd ardayga xaggan fadhiya wuxuu yidhi seen u ogaan karaa Facebook in meel kale laga galay ama qof kale u galay markii dhood baan sharaxay waxaad ku ogaan kartaa haddii aad isticmaashay feature-ka loo yaqaano Facebook two factor authentication under privacy policy-ga ku jira two factor authentication waad ay kartaa malay Facebook setting hadda tagtid privacy-ga tagtid privacy setting-ka waxaa jira option la yiraahdo two factor authentication wuxuu ka caawinayaa option-kaasi in device-kaaga aad adigu geli kartid account-kaaga device-ada aad taqaanideed ka isticmaashid oo aad ku risgarayso aad ka geli kartid haddii meel kale laga galo kuu sheegaya marka isaga kuu sheegaya wuxuu ku odhanayaa device walba laga galay ma sii daynaysaa haddaad sii dayso yaas tiraadid unbuu galaya haddii aad noo tiraadid ma gali karaya markaa qofku marka option-kaa press garee su-aal guud bay ahayd oo ardaygaad weydiiyey oo ahayd wuxuu weydiiyey zaki markaasaa ka jawaabay macnaha website-ada marka la sameynaya caqabadaha jira dadkii bulshada seed ugu qancin kartaa in application aad u samayso maaha ama inaad website u samaysa maadaama technology-ga ayna ku dhex jirin bulshadeenu badanka ma fahansano saameynta ay businesskooga ku yeelan karto ama wanaagga ay u leedahay in ay helaan system xisaabeed oo wax u xisaabiya ama website ay productgooga soo gashaan oo ay dadkii kale ka arkaan badanka waxaan samayn jirnay anagu waqti badan baynu ugu qaatay inaan customers qancino waxaan lahayn qayb marketing waxaan lahayn meherad baan lahaan jirnay ka shaqeysa waxyaalaha farshaxan la oran jiray marka qayb marketing aan lahaan jirnay oo waxaan samayn jirnay intaan ay soo iibinay baan website-ka iyo waxyaalaha information-kiisa intaan gelino baan waxaan oran jirnay khuruush baan ku bixi jirnay meheradaha
marka waxaan samayn jirnay meherada intaan u tagno intaan soo ogaano caqabada haysta meheradaas amba sida loo xallin karo ayaan dabadeedna intaan qofka u tagno baan u sharaxaynaa saasaa jirta waxaasaa lagu qabanayaa website-kaasaa lagu samaynayaa badanka boqolkiiba waxaa odhan karaa 60 amba 70 waxaa waxba uma arkayaan laakiin waxaa jira 30% ku yar dareemaya oo ku odhanayna waxaa waan u baahanahay marka waxaan samayn jirnay qolooyinka aanu ka aragnay in baahida ay jirto inaan haddana iyaga sii dabagalno oo aan update garayno oo aanu qaraacno oon xafiiska ugu yeedhno oo aanu wax u sharaxno at the end of the day maybe in 30%-ga aan ku guulaysano badanka imika waxaa soo kordhay busnisyada magaaladeena waliba khaasatan Boorama waxa haysta dad waaweyn oo iska dadkii hore marka waxaan aad ka hadla si biin fahmi waayaan bal laga yaabaa laakiin qolooyinkan imika dhalinyarada soo baxay baa imika aad u la haysta oo meherado badan oo qolooyin dhalinyaro ay leeyihiin baa imika magaalada laga furay qolooyinkaas aad bay u fahansan yihiin social media marketing iyo in website loo sameeyo iyo waxaasi adiga waxa laga rabaa inaad portfolio samaysato oo website aad samayso iyo kale oo independent aad u samayso inaad diyaarsato dabadeedna application aad independent u samayso application aad design garayso aad diyaariso dabadeedna aad application iska u geyso tiraado application sidan u shaqeynaya halkana la maraya waxaas uu qabanaya amba website waxaan ku qabanaya social media oo kale waxaan samayn jirnay hadii restaurant oo kale aan tagayno waxaan sameynaa inaanu restaurant design oo kala soo qaadno aan sameynay oo meherad khayaali ba anagu aan u sameeyno laakiin ya isku mid yihiin meherada aan u socono kale dabeedna aan design-kii u geyno ku naraano marmar waxaan run jirnay meherad kale aan u sameeyo waan been sheegi jirnay si aan qofka u qancino bal in waxaan baahi u qabo mogtahay marka in designers aad samayso adigu portfolio aad samaysato inaad qofka aad tusto values-kaaga iyo inuu kugu kalsoonaan karo waxyaalaha ugu waaweyn ee dhibaatada ka haystaan wax kamid ah kalsooni darra jirto laga yaabaa inay ku yar arkaan qof iska yar socdo oo meelaha iska wareegaya marka badankana waxa muhiim ah in aad xafiis yar yeelato customer-ka aad u yeedho xafiiska kuugu yimaado dabadeedna aad discussion la samaysto oo kalsooni aad dhisto marka waa intaasaan kaga baxayaa waxaan kusoo dhaweynayaa shay haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashii uu noo weydiiyey inankaas ambaawiilka waxay ahayd su-aashaadu maadaama uuna jirin sharci xidhaya Facebook adigoo xag jooga see sharci loogu samayn karaa laba shayba sharci waa loogu samayn karaa waxaa jira waxyaabo qofka akoonkiisa aad ku isticmaali karaysid asagoo akoonkiisa ku jira laba midkeed ma haddii uu qofkani galo dembi xoog u weyn amba uu dembi xoog u yar galo waxaan odhan lahaa horta sharciyan taa waxa xaq u leh dowladda inay ka jawaabto aniga laakiin fikir ahaankayga way ku dari karaan other colleagueskuna fikir ahaantayda waxaan odhan lahaa qofka xadgudubkiisu uu yar yahay amba qofkan sharaftiisa amba waxyaabo yaryar ku xadgudbay oo maxaa la dhahdaa maadaama ay dembiyadu kala fudfudud yihiin waxaan odhan lahaa waxyaabaha qaarkood sharciyada qaarkood baa jira waxaan I hope inaan lagu soo dari doonana inaa maxaa la dhahdaa qofkaas lacagna lagu xukumo waqti amba bilo amba sanad ugu badnaan lagu xukumo inaan la xidho qofka kalena waxaan odhan lahaa inta lagu xukumo intaas dabeetana maadaama username-kiisii la ogaan karo password-kiisana la ogaan karo dhammaan akoonkiisaas oo dhan waa la remove garayn karaa waxaa jira application-no amba maxaa la dhahdaa apps yar oo la isticmaalo lagu remove garayo akoonkiisa oo dhan laga remove garayo dabeetana laga wada xidho dhammaan waxyaabaha uu isticmaali karo amba akoonada kale uu isticmaali karo xadgudubkiisuna uu noqdo inaa maxaa la dhahdaa tallaabo dee sharciyeysan laga qaado lacag ahaan iyo dee xidhid ahaanba lagu sameeyo waxaan ku yardiri lahaa su-aashaas waxaa jirta Facebook maadaama uuna halkan xafiis ku lahayn oo dowladdeena xeer isla lahayn way adag tahay si Facebook aynu sharci ahaan isagii u doonanaa marka wayna adagtoo wadamada kale iminka wadankeenu weli Soomaaliland ictiraafkii maynu helno si gaar ah ulama xifaaltami karno Facebook laakiin insha Allah markaynu ictiraafka helno ayaynu waxaan sameyn doonaa Facebook oo kale intuu xafiis ka furto inuu la xisaabtami doonaa waxyaalaha beenta dadka waxyaalaha qaldan soo geliya in isaga si gaar ah uu isagu legal u sameeyo marka uu yiraahdo
in legalka iyo saasaa lagu dhaqmayaa oo ay dowladdeenu markaa isaga ku qasabto haddii kale dowladdu tiraahdo Facebook oo dhan waddanka waa laga xidhaya haddaanad ruleska iyo regulationska waddankeena aanad raacin taasaa lagu qaban karaa inta ka horreysa marka waxaan samayn karnaa in inagu aynu si gaar iskula xisaabtanno oon aragno qofkii aan aragno inuu problem wado aynu si gaar ula xisaabtanno oo dowladdu ciqaab aad u weyn ku soo rogto laakiin wax damage on Facebook gaarsiin karno aba si gaar ah ula xiriiri karnaa ma jirto ka personalka marka laga imaaday reportka adigu iska gudbin karto haddii Facebook qofi ka been abuurto report baad gudbisan kartaa Facebook toos baad ula hadli kartaa oo waxay leeyihiin xafiis customer care bay leeyihiin oo dad u qaabilsan bay leeyihiin dhibaatooyinkaasi wayna kugu mahadnaqaan waxa qoranaya oo maasantay inaad qofka saysa ka sameeyay Facebook aad noo soo gudbisid marka labada mar baad mari kartaa baraha bulshada loogu isticmaal badan yahay waddankeena laakiin u baahan in la yar cadeeyo baan rabaa insha Allah inaan yar idin cadeeyo amba aan ka jawaabo ka soo qaybgalaya waxaynu weydiin ka soo magaciisa aan xasuusnayn mar haddii baraha bulshada ay leeyihiin shirkadaha ajnabiga waddankeenuna aanu shirkadaha ajnabiga ilaa amba Facebook aadan amba Twitter baadan amba kuwa kaleba aanu xidhiir la lahayn sidee bay suuragal u tahay inaynu inagu sharci ka soo saarno kuwaasi lagu xakamaynayo si kooban haddaan uga jawaabo bilowgii hadalkayga markaan ku bilaabayay dadkii hadalka bilaabay baan ka mid ahay waxaan ku bilaabay wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyadda oo dowladda amba qaranka si guudba u qaabilsan wixii technology la xidhiidha iyo isgaadhsiin inay bulshada u jihaynayso in dhinaca wanaagsanna looga faa'iidaysto technology-ga oo ay tilmaanto sidoo kalena ay tilmaanto khataraha iyo dhibaatooyinka ka imanaya tilmaamid keliyana maahe ay digniinna u raaciso ay tidhahdo sida ayaan loo isticmaaline iskaga ilaaliya sidaynu cawba doodda halkan u qaban haddaba waxaa jira bini aadan markaynu nahay waa la garanayaa linsaan khadaa wa khayra alkhadaa'iina tawaabuun soomayn bini aadanku dee wuu xadgudbaya qof kastoo xadgudbana waxaa la rabaa inuu jiro meel lagu qabto oo lagu xakameeyo de marka haddaynu leenahay lama samaynayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay dee qofkii xadgudbina waxba lama odhanayo laakiin si haddaba nidaamka aynu uga faa'iidaysano qofkii xadgudbay khatartaa dhaafa amba xariijinta wanaagsan dhaafo waa lala xisaabtamaya waxaan yar sharaxay haddaba sida loola xisaabtamay si aad u fahantaan in sharci la samayn karayo iminka haddaad dhegaysateen hadalkii amba dib u yar dhuuxdaan doctor madar uu ku bilaabay wuxuu yidhi institutionska qaarkood waxay xakamaynayaan social media inaan la isticmaali karin tusaalaan soo qaadanaya jaamacadda camuud oo jaamacadda ugu weyn ee tusaalehaan gobolka ku taalla amba eelo uu mustafay nagala joogo ardaydu eriyada ay yimaadaan haddii ay jaamacaddu boolasigaa qaadato la isku waafaqo waxa awood ay u yeelan kartaa in jaamacadda aaggeeda iyo kombiyuutaraadkeeda iyo networkeega aan laga geli karin social media tusaale kale haddaan soo qaato waxay samayn karnaa hotel rayso inu caawa joogno haddii internetkaynu haysanno oo madax bannaan oona hoteelku lahayn noqoto iyo haddii ay noqotoba internetu hoteelku leeyahay hadday boolasigaa qaataan waxay awood u yeelan karaan inay inoo diidi karaan eriyadaa rays inaynu joogno inaan la geli karin la isticmaali karin social media hadday qaar focus kalen hadday dhammaantood diidayaan tusaale kale waxaa idiinoo rabaa inaan sharaxo facebooka markaad eegtaan haddii uu qof dembi sameeyo miyaa la iska daynayaa waa shirkad bareefada amba waa maxay waa shirkad dee ajnabi oon innaga ahay laakiin hadduu qofku maanta dembi sameeyo faldembiyeed sameeyo miyaa la iska daynayaa shirkadda waxay odhanaysaa hawshiisa ay iska wato waxaad garanaysaano tusaale yaro kooban bay noogu filan reporting baa la sameeya waxaa la odhanayaa dad intaa leeg hadday soo bargareeyaan accountka noocaasa accountka waxaa lagu sameynayaa leveliskii waxaa la marinayaa bolisigii securityga in la xanibo muddo intaa leeg la hubiyo haddii waxaas ku caddaato waxaa la awoodi karaa dhammaan xogta ku jirtaba in lagaa masiixi karo haddaba innagoo waxaasoo dhan garan karayna somalilan amba dowladdeennu miyay awoodi kari laadahay inay social media xeer ka soo saarto o xidhi karto anigoo ku hadlaya magacii wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda gaar ahaan waaxdii tiknolojiga awood waxaan u leenahay inaynu waddankeen oo dhan ka mamnuucno oo aanad social media geli karin hadday soo godo laakiin saynu sheegnay dee waa wanaagoo maa wanaagoo dhan in la mamnuucee
waxaynu rabnaa inaynu sharci ku bannayno wixii qaladee la isla yaqaano wixii wanaagsanna aynu dhiirigelin inuu soo jeedo laakiin yaan loo qaadan oo loo fahmin waa shirkad ajnabiya Facebook amba Twitter amba Instagram dawladda Somaliland awoodeeda lama aqoonsanaa oo macnaheedu ma waxba kama qaban karto awood waxaynu leenahay inaynu ka qabanno website-ka laftarkiisa wax lagu iibinayo haddaynu aragno inuu national security-ga ka hor imanayo amba waa maxay fadeexad soodo awood waxaynu leenahay inaan wax ka qabanno waa laga qaban karay shirkadaha isgaarsiinta ee maanta aynu internetka ka isticmaalayno oo internet service providers yaa maamulay yaa liisanka siinaya yaa ruqsadda siinaya yaa kuu jidaynaya inaad maanta internet 4G hesho yaa kuu jidaynaya inaad hesho internet 5G yaa xaqaaga u doodaya inaad customer baato customer protection-kaaga la ilaaliyo adeegaad xaq u leedahay oo quality-ga adeegu inuu meel walba gaadhay yaa u doodaya yaa u doodaya inaad hesho internet capacity-giisu fiican iyo wax ku download gareyn karto amba aad wax ka baran karto dee macnaheedu ma aha inay shirkadaha ajnabi leeyihiin oo leeli karayne oo wax dowladda Somaliland gacanta ugu jira waxna laga qaban karaya de qaar badan oo kamidana waxbaanu ka qabanaa oo noo aragnay inay wax ka hor iman karaan laakiin halkaynu u soconaa waxa weeyaan miyaynu u baahannahay xeer lagu xakamaynayo cyber security-ga oo de especially social media oo qayb ka noqonayo haa waynu u baahannahay dowladahoo dhan baa leh wasaaraddu miyay xeerka imika publish karayso faafintii rasmiga lagu soo saaray waa maya laakiin gacantay ku haysaayo insha Allah maalin maalmaha kamida waxa lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga amba publishing-ka kadibna wuxuu noqon doonaa xeer dhaqan gala oo ciddii xadgudubta lagu qaadi doono xeerku muxuu simanayaa Fatima yarta taabatay dunuubtu way kala weyn tahay ciqaabaadka ujeedinayaan inay kala duwanaanayaan cid walba waa garanaysa ganaaxiyaa jira oo deemanka wadamada shuruucdooda haddaad baadhaan European-ka haddaad baadho haddaad wadamada Afrika gooni u baadho iyo haddaad wadamada tusaaleaan Asia baadhoba wadeeli karaysaa sharciyada ku dhaqmaan marka ganaax buu ka bilaabmaa wuxuu ka bilaabmaa adeegoo la xanibo wuxuu ka bilaabmaa akoonka xogta ku jirta la masaxo wuxuu ka bilaabmaa akoonka hawada laga saaro wuxuu qofku helaa waa maxay ciqaaba waa maxay ganaax yar koobana wuxuu helaa ganaax lacagtiisu sarreyso wuxuu helaa ganaaxa in waqti mucayan aan loo ogolayn in wadanka ka dhaqaaqi karo amba aanu eriyada tigi karin ganaax wuxuu heli karaa waa maxay social media muddo inta lagin aanu akoon furan karin ganaax wuxuu heli karaa in social media kastuu sameeyo laga masixi karo oo loo ogolaan karin waxaasoo dhan inagu imika halkan kuma hayno laakiin doodahooda iyo waa maxay fahankooda iyo cilmigooda iyo aqoon-yahankooda baa la tashanaynaa imikana gacantaan ku haynaa wax badan waa haynaa waxa dhimanna waa ku daraynaa marka inaad maskaxdiina gelisaan inaynu u baahannahay la soo saarayo jiro capacity-ga iyo awoodda iyo aqoontaan aynu maanta leenahay ha ka cabsanina insha Allah inahaasi baan ku darayaa mar labaad iyo mar saddexaad aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu